وفيديو كله وحنبارسن حكمت علص إن بدنا نقعد ساعتين واحد ترى الشيخ وحنا لو بدك تسدل لو بحيا أما لو بحيا فورم كأبليكيشن كدي في لو تريجا دايفرسيتي لو تريجا أو فيزا بحثي نصيب كلو قالوا مراكن مركب عربي فيديو كان إن تسوي فورم كلو بحث خلادات كلو قف وقعدوا فيديو حكوا عن فعيا قف كسته وفيزا سوية قف كسته بروسيس ودمار قلبت كرامين وقعدوا سيادو قف وقعد خلادات كجود أو دتك سوماليات سميان ما دام عن بدنا شو شقي سفارة ورقلبت ك iyo maxkamado oo immigration ka iyo hay'ado marka wax badan baad ka faa'iido doontaa daawo video la dhamaadkan systemka iyo si u fakaraan iyo sida wax loo bixiyo khalad ka dhan baan rabaa inaan ka soo laakiin inta video guda galin videogan waa educational purpose only videogan waa aqoon waxbarasho aan rabaa inaan kula wadaago mana ahan talo sharciyan inaan ku siinayo ma ahan talo sharciyan legal advice ma ku siinayo يا مركب وأقون تاسات قادنيسا وحاجات تسكو أداتسنيسا أوكي مركب هذا نقول لك أنا سيدا لو بحدي في اللوتريجا وحقيقتنا سوبسيت كونو كاسي هاي متكله هداد عادي على كوتا الله وبحنت على مجا يكرد كارك يا واحد كاتايف كوتشلا لقى حضيا كل عيد كويدينه عادي information كاجا لحضيا كاس كليا بعد عادي سي dv.program.state.gov كاس official ka government looga diba saaran dawladda Mareykanka loogadoodii ba saaran kaas bes baad aadaysa iska ilaash kuwa kala magacyada iyo waxyaabaas rab inay ka xadaan ya waxna kuma hayaan ya lagu khiyaan kaas markaad aadid kadib bigan entry ba ku dhifanaysa characters ka soo bixinaysa wuxuu ku keenaya application ka waa simple meeshan way laakiin mistakes ka sida looga fogaado si ah chances-yada u kordhisid baan rabaa inaan kula wadaago marka let's go full screen Okay, marka part 1 internet information qofka bahalkan liya koobaad main applicant information kiisa meeshan la gelinay waxaad ku bilaabaysaa family name first name middle name marka family name last name surname waa isku wada mid maxaa laga wadaa ya ma awowgay magaciisa anaga awowgiis magaciisa noota ya horta inta taas ku dagelin warbixintan waxaad ka soo koobiyeynaysaa oo eray by eray حرف باي حرف بس أو كوبيينيسا باسبورك أتكو أبلاي جرانيس جد وسو كوبيينيسا هل حرف دوك الدوية هو خلط حرف سو قرينة last name مش قرنته last name قال first name مش قرنته هدو حركة خلدناين بالكان صوص حمر كور لكن واحد باسبور كانوا حاكوا قرن كانوا حاكوا كرد هل حرف ديك الدوية هو خلط أوكي marka information ka soo dhan passport ka soo koobiyeenaysa date of birth balkan liiraahdo family name last name wax kasta meeshaas baa ka soo buuxinaysa inta ku sharaxan waxyaabaha ay yihiin iyo sida reer galbeedku ay u arkaan iyo inaysan ahayn dadka ay TikTok ku xiran waxaan u sheegay first name balkan family name iyo surname iyo last name inaan laga wadin awowga magaciis sidoo kale middle name ma ahan magaca aabaha marka ina fahantidu waa marka reer galbeedku iyo wadamada adduunka intiisa badan family name iyo last name iyo surname maxay ka wadaan waa magac qoys iska leeyahay waana magac soo jireen oo sanooyin iyo boqolaal sano soo socday way ma ahan magac awowgiis oo la yaqaano hebel la dhihi jiray ma aha example baan ku siinayaa Donald Trump odaygii Trump qof la yaqaanay oo sanooyin dhawaa la yaqaano noola ma aha waa waqti dheer buu soo magac soo jiray wuxuu ku tusinayaa مثلا badadku waxay faa'iidooyin ku leeyahay waxa kamida hadaad fiiris qofkan last name kiisa asal ahaan meesha ka soo jeeda taqaan مثلا Trump hadaad fiiris waa fahmi kartaa ama Scandinavian buu ka yimid ama German root meelahaas uu ka yimid waa magac hore soo jiray halkaas ka soo jiray يا marka ay soo isticmaalaan family name odayga waxa la Donald Trump wiilkii waxa la Abdi Trump naagtiisi waxa la Halima Trump wiilka naagtiisi waxa la Khadija Trump yaa la soo markays magacaas isu wadamay ayeediisi kontomaad waxa la dhihi jiray Ambaro Trump baa la dhihi jiray waa fahmaysaa Soomaa hadduu qabrigeeda meel ku arko oo wareey ayeedanadii waa family-ka ahayd u leeyahay marka saas ay u isticmaalaan last name ya Chinese Asian wadamaas oo dhan la mid iyo xataa Arabta kuwa hormar saas ay u isticmaalaan family name ma aan awoow la yaqaan iyagu soo arkaan ani waxaan rabaa aqoontan kula wadaago si aad waxaaga isugu aadsatid ya bahalkan liiraado marka anagi مثلا waa apply garay ano xikmada apply garay awooy grade baa la yiraahdaa waxaan haystaa wiil luga yar la yiraahdaa marka wiilkaas maxaa anaga Soomaaliya hadana maxaan u noqonay wiilkaas luga yar xikmad grade baa la yiraahdaa soo markays ayagu marka way confusion baa ku dhacay waxa wiilka in la yiraahdo luga yar grade
حكمة جريدي ويل كانوا دقة دير اللي رادنا سبحانه وقنا دقة دير جريدي ونقنا وفهم إذا سوما أجاو ساسي وأركان middle name بانو إيمانا يا مركا middle name ما أهان مقع أبها middle name كوالا بمقع وقف كاس اللي راد يا لما مقع وقف كاس للسيوي مثلا بقى عبدي واحد عبدي وهاب ساسو كانوا أركان أجاو سوما جد مثلا بدلوا يرادا وحال يرادا محمد عبدي أحمد بالوي محمد عبدي أحمد محمد عبدي أدين اللي يرادا مالين أبا شغلكم أنا مركا قف انترفيو كم مرني محكمة دي ساسي وأركان example كردان وصل لابت مركا مثلا بويل كيجي دقي ويل كيجي واحد بحشي لغة يرى حكمة جريدي دقي دار حكمة جريدي سو مركا قف انترفيو كم مرسيني ووريريا حوليه maxay tahay dadka isku wada magaca maxaa labada ilmood iyo odayga waxa ma isku magac u yihiin ya confusion baa dhacay because wuxuu maleeyaa luga yara xikmad in wiilkan magaciisa luga yara xikmad sida Abdi Wahab magac isku xiran wiilkan leeyahay u maleeyaa iga dheer xikmad kaas maxaa why do they have same because magacaas in wado laba wiil dhalo kala mid Abdi Wahab mid ula baxay midkii kalena ula baxay Ahmed Wahab saas oo kale u arkaa way fahamtay Soomaa marka hadda family-ka la apply garanayso waxa isku aadaaso dadkan saasay u arkaan muhiimadan ku sheegay maxay tahay ma inaad dhaqan ku yeelato ma muhiimadan ku sheegaya waxa weey inaad fahantid qofkan soo u fakaray qofka kale soo u fakaray hadaad ogaatid wax ka horeysa ya qofkan kale soo u fakaray hadaad ogtahay wax ka horeysa waxa aad soo aadsatay أنا ما كنت هناك هذا مقع قاعدة لكن وأنا أشرح كرت وأنا فهم كرتا وأنا بني آدم بعته وأنا فهم كرتا وقفك كرسو الدونك وأركو أنا بني آدم بعنا موت وحجر الدونك أركنا سو حجر الدونك كأركا يا مركا وحاجة سو سو سلاس وي لكن information كانوا كالكنادات بحنيسد waxaan rabaa say passport ugu qoran tahay inay tahay hadii kale hadhow magaca orderkii baa ka khaldamay hadaad family name ku buuxiso first name family name kii u qaadana مثلا بدل حكمة جريدي angeliyo حكمة last name magac حكمة magac last name noqon hadhow tii wax dhamaay confusion baa dhacaya in case kaaga la diido yaa laga yaaba computer kana warkiis bas ka badaabo waa arka waxaan isku aadaadanay wuxuu leeyahay bismillah war waxaan maxay spelling kan soo laabanaya marka spelling ya soo laabanaya maxay yeelay anagu Soomaalidan wax kasta wana la fildiyo hadaan taalo soo qaato Ahmed iyo Ahmed isku mid ma laba magac kala duwan bay u tahay computer kan laba magac kala duwan bay u tahay dadka interview ku marsiina laba magac kala duwan bay u tahay marka spelling isku soo aad magaalada magaca spelling ka soo passport ku qoran yahay kaasna ha ku qornaado dadka confusion ka day walaalay ya waxaan arkay kuwa kale dad badan oo Soomaali halka dhahay sheekh maxaa naga galay annaga hadda baalkan liya walaalkan ku farxsan hadii wadanka Soomaaliya joogto oo rabto inaad joogto oo reer galbeed iyo wadan gaal u safreen Allah ku barakeey laakiin anu dadka waxaan ogahay dad badan oo Soomaaliyeed inay rabaan inay aadaan sidaas darteed rabaan inaad systemka ka horreeyay oo fahmi kartid ya qofka kale waa dad fahmi kartid waxa uu u fakarayo waxa isku soo aadsanaysa moogta ما يلا أنا وين بدنا محكمة على سوق شقي دتك Soomaali wax kasta ciyaar bay u arkaan maxay dhib ah leedahay waa laba magac oo kala bedelan waa magac aabahay passport ka tageen magaca shahaadada ka tageen waxaas wax la yiraahdo ma jiro qof dadkan reer galbeedkan ma fahmi karaan qof inuu jiro magaciisa bahalkan spellingkiisa khaldi kara anoo moodaa dad iska jaahiliina noona waxba qoran ayagu ma fahmi karaan ayagu waxay u arkaan wax kasta saas inay tahay letter by letter passport ko xaga kala duwan shahaadooyin magac kala ku kala duwan ama order ku khaldan yahay duu jiro iska bedel ama iskuulkii tag soo bedel okay magacyada halkaas baan uga gudbayaa hadaan ku kala xaqiijiyo bahalkan ya say passport ugu qorayn ba ugu qoraysan laakiin kadib ilmaha ku dhashay iyo adaa ka fakari doonto laakiin waxa ku sharxay sida reer galbeed u fakaraan magacyada uga fakaraan date of birth meesha ugu daran way Soomaalidan nahay dad badan oo aan aqoon sida ay waqtiga dhasheen baa jira iyo meesha ay ku dhasheen sahal bayn wax kasta leeysan u sheegay laakiin reer galbeed iyo hadaa u socotid waa no go hadii baalkan date of birth ay kala duwan tahay case kaagu waa rejection waa isku dhamaad because qof ma fahmi karaan dadkan inuu jiro qof aan aqoon maalintu dhashay dadkan guriga ayeedid ku dhalatay kontomaad maalinta la tuu yaqaana adoo shala dhashay inaad arko waqtiga dhalatay macquul ma yahay marka meel bay ugu wada qoran yihiin adigu marka maxaa laga rabaa January 1st ilaa December 31st haysataa maalin kamida soo qaado January 1st laazim ku ah
sanadkii lagu badana dadka waa la yaqaana sanadkay dhasheen marka sanadkii soo qaado maalin go'aan ku soo gaar shahaadooyinkaaga passportkaaga ID kaariyada isku hal xabo ku soo qor maalintii wax kala duwan la arko waa fraud number 1 lagama cayaaro date of birth lagama cayaaro magac wax yar kala duwan waa laga yaabaa inay iska gudbiyaan laakiin date of birth kala duwan waa been hadda hal maalin baad dhalatay adduunkan hal maalin baad dhalatay how can be confusion budahay sidee u kala duunaan karaan way fahmaysaa soo ma marka ma fahmi karaan inay qof uu jiro aan aqoon maalintu uu dhashay marka waxaa isku soo aadso hala iman interviewga ama form ku buuxin ma aqaan iyo minna ku buuxin maxaa yeelay ma ku fahmi karaan ya ma ku fahmi karaan isku si say passportka uu qorantay yaad ugu qoraysaa bas waxyaabo kala duwan haday jiraan ama qarso ama soo saxo isku hal maalin isku hal sano inay yihiin waa laazim tan kale muhiim way aad u dhigta furta haddii مثلا reer galbeedka imaatid magacyada waa bedeli kartaa asloon aad qof dambiila ahayn sahal waa iska bedeli ma anta rabtan bedel laakiin date of birth good luck inaad bedeli karin waa bedeli kartaa laakiin waxa u dheertaa process iyo maxkamad waa almost impossible because qof maalintu dhashaan aqoon inuu jiro ma fahmi karaan okay allo ma idin sharax waxa ugu daran waa magaca iyo date of birth ya date of birth iyo magaca basic way anaga Soomaali wax kasta ciyaar baan u naqaana baalkan la yiraahdo magacyada spelling waa kala bedbedelan yahay dadkan dib bay u arkaan waxaas adinka soo raadsay anaga raadsanay marka waxaaga isku soo aadaad walaalo waxaaga sax ka dhigo okay marka waxa ku buuxinaysa the city you were born magaalada ku dhalatay gelinaysa waxa lagu leeyahay magaalada bes geli مثلا هدي مقدشو او كدمبيسو باسبور كو قرانتاي اد ميشان كو بخش مقدشو او يو قدمبيسو waxa lagu leeyahay magaalo waa maxalada magaalo qofkan ku dhashay ma laba magaalo ku dhashay aniga hada kor ugu dhacdo waa hore in application lagu soo celiyay you dhamaad ku qoran tabtay baasaboor ku qorantahay ugu qoro ya magaalada magaceeda saxda meesha ugu qoran ugu qoro allo ma idin sheeg country you were born drop down kan baka dooranaysa country you were born inuu country eligible yahay laazim way kan baalka soo Soomaaliya kale eligible country of eligibility are you claiming eligibility based on the country that you were born for example haddii anu aan ahay baalkan yiraahdo waxa laga yaabaa inaan UK citizenship haysto laakiin waxaan rabaa inaan baalkan le Soomaalinimo ku sheegto marka yes aan leeyahay haddii kale oo ay saasayn no way yeah paragraph halkan waxa kale laga baalkan yiraahdo tan waa muhiim sawirkan computer baa fiirinay khaasatan keyskan computer baa fiirinay ya computer baa fiirinaya waa inaad photoga sida saxda ah isaga qaadid instruction kan balance la eego ya photo example muscle let's see an photo in example ka fiirin karo marka photoga sida saxda instruction ka halkaas ba ka raacaysa waa inuu background ku cadiyay size-ku sax inuu yahay waxaan aad idin garanaysin indhaha iska blue iska dhigaysin computer-ku 1 second buu detection sameynaya marka warina ligas photoga maxaa sameynaysa camera laga qaadaya photoga sida saxda shadow inaysan lahayn baa la rabaa shadow hoos shadow inaysan lahayn baa la rabaa WhatsApp ku dir maxaa yeelay application madana way compress gareeyeen sawirka way yareeyeen flash disk ku soo qaado computerka nab ku siiso ku upload gareeyeen muhiimadda kale taas u leeyahay waxa weeye sawiradan markii kamerada qaado waxa la yiraahdaa mara data waxa la yiraahdaa sida date-kii la qaaday iyo size-kii iyo iscada oo ku dhex jiray leeyahay because waa digital file waa markaas hadaad sideeda u soo qaadid oo WhatsApp iyo Messenger iyo balaayo aad ku dir iyo edit aad sameyn warbixintaas computerka waxa u sahlaanaysa inuu akhriyo oo arko markii photogan la qaaday ya almisino kan waa kan haddu ifrmo soo ma jeed kuwa la aqbalay kuwa la diiday soo ma jeed kanoo kale maxaa lagu diiday baalkan la yiraahdo underexposed waa marka adigu aad edit iyo waxaas aad galaysiin waa khalad kanoo kale maxaa lagu diiday hoos buuleys ma jeed shadow baa lagu diiday
tanoo kale waa la aqbalaya soo ma jeed tan kale waxaan rabaa koofidana lama ogola ookiyaalana lama ogola allo ma idin kaga diga dadkiina jacayna footooyinka edit gareeyeen dabluga isaar allah ayo qurux badnaa kuweyn baa leeyahay waxaas ma shaqeeyaan sawirka haddaad fool xunta haddaad bidaaq leedahay haddaad ilka weyn tahay afka natural impression waxaa leeyahay samaynaysaa maaha ama baalka maaha natural baag inaad neutral taala rabaa soo ma jeed afku wuu xiran yahay sidaas yaad raacaysaa taladan ku siinaya maxay tahay shaqag madahan baxad soo qaadanaysaa flash disk ku soo qaado WhatsApp iyo yaan lagaaga dirin maxaa yeelay application madaas way compress gareeyaan way yareeyaan quality ga dhiman computeraduna way nacab yihiin wax loo quality waxaan computerka akhrinay dhala meesha buu ku qabanayaa dag wajigiibu hal maasaas u akhrinaya sahal computerka binaadamka marka sawirada imaato uu ka akhrin ugu waxa maanta edit yar baan gelinayaa kuwa footooyinka qaada hayga edit gareeyna footada haddii kale baa laga diidaya footada kamerada raba inay color inuu exposure-ka iyo waxa dhan sax yihiin ma ahan hadduu ka edit gareey uu ka halaynaya okay mailing address muhiim waa mailing address marka Soomaaliya oo kala joogta baalkan address ma lahan baalkan mana lahan baalkan la yiraahdo postal code ma lahan marka wax haddii aad taqaanid ayada oo kale Mareykan ku nool ama Ingiriis ku nool yaad ku buuxsan kartaa in care of يا معناه الله أركيا أدرس كان كمان نورد لكن هدي ميل مهمة للوصول الدرية رجال بيتك ودملاس ولي واستعمالا بوستل ولي والله استعمالا ميل ورقات بالوصول الدرية تقدر الوصول الدرية ورقات الدولة تكون مع الوصول الدرية تشيك العقب بالوصول ميل قرنه ولي والله استعمالا سيستم كفهم marka waa muhiim inaad tan address qof sax ah oo address u degan yahay aad ku buuxisid addresska maxaa kamid ah qof guri uu leeyahay degan oo kale family oo kale meel degan oo aan badanaa guurin inaad address kooda heshid taraagle wadada saaran oo goom sanadkii baalka liga sanadkiiba laba mar guura waraaqa lagu soo diray addresskiisa oo ka lumayaan maxaa yeelay addresska markaad bedeshid dawladdu waxa ku soo diraysa addresskii hore saaxiibka cadaan baa leeyahay waa laga jeexjeeyaa waa la tuuraya أما ولا علنا postal office كيف لو عليا لو ما هيلي كرا ميل وجورا لا يقان واتراجل قف ميلا وميل دقن جرو ليه هاي دقن هدي تقاند أما دت بالكان لذا fixed address دت كأن جورا وكان قف هذا تقاند وفاميلا هو كان وحافي عن إن قف كاس استعمال address كيس تاسو دميا ما إن كان of مركية وحنيد عليا الدولة ويقطع إن address كاس كنا أونلاين لكن قف كان لو صو دير كرا ميلك ميلك ولي ما لا استعمال رجال بيتك آد بالو استعماله بيلكي بالو صدريا وعلو صدريا ورقي مهمك ورقة وراي كم مهم سنت ميلك على سوق درا هذا بوستولك حجابة آمنات باجرت يا مركا كوب بح أدرس كالك سبب كوب حنيسة وددا مجا هيدا أدرس لاين تو هادوتشر وكوب حنيسة مجا هيدا بدنا قفك ودمنا رجال بيتك أدرس كا وحصل ناس قفك سوق كوب حجاب في عن بالكان لي زيب كودكا أما postal كودكا بالكان لي مريكان كوكالا نمبروي كندا وكالا ونمبرو يحرفو اسكو درسوي ودماسكا وريورك وكالا دوين قف كاسبا كوسو دري هذا خلاص هاي كمبيوتر ما اسكا أقبالي واحد بين أكون بيهن فهم كان ومهم يا ورادي كانوا عبد دوران كرتاونو postal كود رزيب كان تريق ودن كان دوران ليس عادي أيدا مريكان دقن توكالا دو عايد ستو اسكا ماشي اسكا دقن كوبو كيدا مركي لغو صادر ورقات هكو أقبشو اوكي كان تريقا دورانيسا ادرس كاس قوري ودن كاغا ما يا ودن ادرس كاس ادكو بوستك ودن كاس دورانيسا country where you live question 9 ودن كان ما انت دغنتاي تليفون نمبركو وا مهم ودمدان ولي waxyaabo official ka waa la iswaa laakiin ma maleeyo program ba inuu soo wacayo laakiin hadii aad baalkan leeyahay aad process kale ku jirto taleefon numberka wali waa la iska wacaa waa muhiim idinku waxa la qabsan wax kasta WhatsApp in la soo diro WhatsApp qof isticmaala ma lahan official government isku WhatsApp iyo social media kala ma soo xiriireen laakiin taleefon waa laga soo waxa email oh my god email Soomaaliya danahay email ma isticmaalno laakiin email reer galbeed waa lagu shaqaystaa
كمبانيالك وين الدون كاستعمال الدولة دا استعمال official marka mid aad hadda koorta $11 isaga furata isaga bixiyay oo email ugu soo dir in kasto programkan ay leeyihiin dawladdu kuma soo dirayso inaad email sax ah haysid waa laazim maadaama waxa laga yaabaa aad markay ku raadiyaan inay just try so marka email aad fiirisid oo inbox-kaaga aad fiirisid oo baalkan yaabo post-iska iyo balaayada aad ku buuxbuuxsay aan full ka ahayn oo waraqaha kugu soo dhacar kartid inaad heshid waa muhiim sababtaan kugu sheegay maxay tahay waxaan kuu sheegayaa email har iyo hameen reer galbeedka waa muhiim waa lagu shaqaystaa baalkan iyo dadka muhiimka waxyaabo muhiimka ah la isugu diraa email waa official line of communication waxyaabo official ka ahayn oo wadamada reer galbeedka ay official loo isticmaalaan waxaa kamid ah social media iyo WhatsApp iyo waxaas aan muhiim laakiin email waa muhiim waa taas xaqiiqi baa lagu leeyahay misna waa xaqiijinaysaa hoos baa u soconaysaa question 12 si sax ah way jawaab dadka dheena u sheegin midkaad shahaadadiisa haysatay shahaadadaas oo isku magac iyo dhalasho iyo passport ay ugu qorantaad ku buuxinaysaa you must have a minimum of high school baa lagu leeyahay ayo wixii la mida hadaad guursatay iyo hadii kale taas way jawaabaysaa baalkan number of children yaad ku buuxinaysaa and then baalkan continue ga markaas I don't know waxa ku sii xiga videogan uu dheeraaday marka talooyin muhiim ah taas baa buuxinaysaa hadii caruur kuugu jirto wax umaleynaya in caruurtana buuxisid way hadaan number 13 and married qof aan wali guursan way married my spouse is not a US citizen and lawful permanent resident hadii naagtaadu aysan ahayn US citizen hadii naagtaadu ay tahay ama ninkaagu yahay US citizen hadii baalkan aad lagu furay hadii ninkana waa qoyaa nin naag widow ismacnii ma kala hadda naagtaada kala tagteen naagtaada isfurteen ninkuna waa widow baalkan ninkuna waa divorce naagtuna divorce waa ma kala widow waxa laga wadaa baalkan la yiraahdo waa in laga dhintay ama aad ka dhimatay legally separated baalkan la yiraahdo inaad sharciyan dad separated ah jira ayo wali isqaba isla noolaan marka wax badan aan u isticmaalnaa desaas baa loo buuxiyaan good luck haddii aad warbixintan ka faa'iidaystay dadka kale la shargara lamina waxaad aragtiin inaad wax kale ka soo su'aalo ka qabtiin in badan baa madala soo shaqeey waa qanaasi u fakaraan marka intaas baan ku dhaafayaa wa alaykum